daawadayaal ku soo dhowaada bartayda aan ku leeyahay Facebooka iyo YouTube-ka Skri Jelani waaniga Skri Jelaniya maanta waxaanu kaga hadlaynaa muuqaalkeenan kulankii dhex maray maanta madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi iyo musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo uu dhexdhexaadiye ka ahaa ama isu soo dhaweeye ka ahaa madaxweynihii hore Somaliland mudane Daahir Yaale Kaahin kulanka labada dhinacba waxaa ku helinaya mas'uuliyiin ka kala tirsan xisbiga wadani iyo xukuumadda oo ay ka mid yihiin Cabdilqaadir Jirde oo ka tirsan mas'uuliyiinta sarsare xisbiga wadani iyo Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye kulankaasi magaalada Hargeysa ka dhacay dalabkiisana waxaa lahaa xukuumadda ujeedada ay ka lahaydna wuxuu ahaa in fariin iyo message ay gudbiyaan oo u diraan bulshada iyo sidoo kalena in fariintoodaasi ay ka soo barbar muuqdaan mas'uuliyiinta xisbiga wadani oo muddooyinkii u dambeeyey ay aad u kala fogaadeen arrimaha doorashooyinka iyo khilaafyada Somaliland ragaadiyey darteed arrinta waxaa aad uga soo shaqeeyey Daahir Yaale Kaahin madaxweynihii hore Somaliland oo isagoo ixtiraam badan ay u hayaan dhinacyada ku haya doorashooyinka Somaliland mucaaradka iyo muxaafidka ama xukuumadda iyo mucaaradku labada dhinacba way ka aqbaleen ama indhada xukuumadda oo soo dalbatay in kulanka uu isugu yeedho mucaaradkina way aqbaleen saasaa la isku hor fadhiistay laba qodob baa kasoo baxay laba qodob oo macnale ayaa kasoo baxay labada qodob kulmiya dan buu ka lahaa ama xukuumaddu dan bay ka lahayd bulshadana fariintaasi way soo gaadhay maanta labada qodob waxaa weeye in meel looga soo wada jeesto qarannimada Somaliland lagana soo horjeesto oo meel looga soo wada jeesto cadowga Somaliland sidii ogsoonahay cadowga Somaliland waxaa laga yaabaa in marka cadowga Somaliland maqasho sawirro badan ama fikro badan aad dareento waayo cadowga Somaliland yaa cadowga Somaliland u ah yaa nasteex u ah kelmadda cadow waxa weeye wayn isla garanaynaa laakiin mas'uuliyiinta sarsare xisbiga kulmiye cadowga Somaliland laba cadowbay ayay iyagu yaqaanaan cadow dibadda iyo cadow gudaha wadadka aaminsan ama mas'uuliyiinta aaminsan siyaasiyiinta aaminsan in Somaliland dar gudaha ku nool oo Somaliland ku dhashay oo Somaliland ku abtirsada oo qoomiyad iyo qaran dhan ah in loogu yeeri karo cadow oo la odhan karo waa cadowga Somaliland waa cadowga gudaha waa dadka soo saaray ama xisbiga kulmiye waxa weeye mas'uuliyiintiisa waa kelmadda ka timaaday cadowga gudaha Somaliland iyo uga jeeda beelo gaara ama deegaano gaara oo Somaliland inay cadow ku yihiin qarannimada marka halkaa waxaa kaaga muuqanaya in kulmiye uu magaranaysaa waxaa halkaa kaaga muuqanaya in cadowga laga hadlaya aan la isla fahansanayn oo labada dhinac ishor fadhiistay maanta aan isla fahansanayn oo aan isweydiinin su-aasha cadowga meel looga soo wada jeesanaya ee aad rabtaan in meel looga soo wada jeesto kulmiyow waa kee su-aasha waxay ahayd in xisbiga mucaaradka wadani uu hordhigo xukuumadda talabaad qodobka labaad waxa uu ahaa in arrimaha doorashooyinka magaranaysaa lagu galo ololaha doorashada qaab bilaa turxaana ama bilaa naxliya sidoo kalena loo hoggaansamo natiijada ka soo baxda in loo hoggaansamo inaan loo hoggaansamin waxay ku xidhnaanaysaa sida sharciga ah sida commissionku ay arrintaa doorashada u maareeyaan mana aha mid maanta kulmiya uu u yeedhin karayo xisbiga wadani mana aha mid xisbiga wadani u yeedhin karayo xisbiga kulmiye wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo aad ogeydeen maalmihii ugu dambeeyey ama toddobaadka hore inuu hadlay oo uu ka hadlay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay inay doorashada xisbi ahaan diyaar u yihiin maadaama uu yahay isagoo gudoomiyaha xisbiga kulmiye sidaa daraaddeedna uu xisbiga wadani kula talinayo ama u soo jeedinayo inay aqbalaan natiijada doorashada kulmiye uu ku soo celcelinayaa oo xisbiga kulmiye uu ku soo celceliyey iyo xukuumadduba waxaanaad moodaa in halkaa Soomaalidu waxay tiraahdaa
maxaa timir laf baa ku jirta halkaa in wax ku jiraan oo ay u baahan tahay hubsiimo iyo in magaranaysa xisbiyada mucaaradka iyo dadka doorashada ka qayb galaya daneeyaasha doorashadoo dhan wax iska weydiiyaan ay dhahdaan haddii maanta xisbiga kulmihi uu toddobaad gudihii 2 jeer ka hadlay muxuu ahaay ha loo hoggaansamo natiijada doorashooyinka maxay tahay waxaa soo socdaa maxaa iman kara ma sidiisii buu muxuu ahaayey shirkadda muxuu ahaayey qandaraaska doorashooyinka qaadanaysa muxuu ahaayey sanaaduuqda iyo muxuu ahaay kaadharka codaynta waraaqaha codaynta ayaa la voucheri garaynayaa oo magaranaysa sidii doorashadii 2017 dhacday wax isdabamarin baa ayaa imanaysa mise muxuu ahaayey maxay ka tahay ujeedada kulmiya uu ugu soo celceliyay big issuega uga dhigayo natiijada doorashooyinka ma isaga commissionkii gacanta ku dhigay marka waa in halkaasna waxay ahayd in xisbiyada mucaaradku su-aal iska weydiiyaan labadaas su-aalood baa ugu muhiimsanaa balse rag iskuraye maanta horta waxa weeye bulshada reer somaliland way ku farxday in laysku soo dhowaado in doorasho la qabto in muxuu ahaay dhinacyadu ay u hoggaansamaan sharciga laakiin arrintaas waxay ku habboonayd sanad ama 2 sano ka hor in dhinacyadu muxuu ahaayey maanta halkan marayno aynu 2 sano ka hor marno si kastaba ahaatee waktiga ayaa sheegi doona inagu kuma jawaabi doono su-aasha kulmiye soo dhigay ah in loo hoggaansamo doorashada kulmiye waxa uu uga jeedo iyo xukuumaddu waxay uga jeedona bulshadu aad bay maanta isu weydiinaysay waxaanaynu rajaynaynaa in dalka doorasho ka dhacdo oo ma garanaysaa isbeddel la dhacaan oo ilaahay colaadahan iyo muxuu ahaay nabaddarradan iyo dhibaatooyinkan inaga soo gebagabeeyo isfaham waa markastoo isfaham waa dhaco waxaa imanaya muxuu ahaay kala fogaanshiyo iyo dhibaato iyo nacayb bulshadana waxaan leeyahay idinkoo gacmaha haysta u diyaar garooba doorasho